dunida muslimka meelo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacaya barnaamijyo waaweyn waxaana isa soo taraya carada ay dad badan oo muslimiin ay ka qaadeen hadal ka soo baxay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo ahaa in dimuqraadiyad ay tahay in la sawiro ama sawiro macmala laga sameeyo Nabiyullaahi Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa Allah yeelay sidoo kale dawlado waaweyn iyo madax caalamka ka mid ah ayaa cambaareeyay qaarkood waxa ay madaxweynaha waddanka Faransiiska ku tilmaameen doqon aan wax garan oo dunida u horseedaya dhibaatooyin laga soo kaban Soomaaliya weli kama ay hadlin ma jiro wax banaanbaxyo iyo carada dadweynaha oo dhacay culimada Soomaaliyeedna ilaa hadda kama aysan hadlin arrimahaas oo dunida muslimka meelo badan oo ka mid ah barnaamijyo waaweyn ay ka dhaceen ma maxay sababta waxa martino ah waxaan rabaa inaan tilmaamno ayda nabi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bal xaq jirnimada reer galbeedka qaybo kamida waxa kamida maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidha maalan qaar taariikhda qora qaar ka mida waxay yidhaahdeen 60 milyan may gaadhaynin dadkii yuhuudda meesha lagu dilay cilladu waa maxay daliilkiinnu waxay yidhaahdeen yuhuuddii jarmalka iyo intan degganaydba 6 milyan ma gaadhaynin taariikh ahaan markaannu xisaabinno saa daraaddeed 6 milyan hadda may odhannin lama gubin waxay leeyihin tiradaa inta ka yar ka muslim ahaan aniga hadduu ninkii gubay qiranayo uu leeyahay 6 milyan baan gubay iqraarku dee waa markhaati madoon waa gubteen baynu leenahay dan kama lihin inaan idhaahdo yuhuud 6 milyan lama gubin waxba igama saaraa hitler inuu faashista ahaa ama naazist ahaana muranku ma jiro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاتي وعن داود يالها كان نقل سعودان ووناك قويسك على ونوغا براتان arrimo xiiso leh iyo barnaamij xisigliya maanta waxaan ka hadlaynaa aflagaadada nabiga la caayay ee salawaatullaahi wasalaamu calayhi naxariis korkiisa nabadgelyaha aato ee dabcan madaxweynaha Faransiiska waa u jeedeen oo maaragtay hadalladu qaarkood website-yada la soo dhigay aad ku aragteen meelo badan BBC-da sidoo kale xagan u jeedaan BBC-da madaxweynaha Turkiga aad u cambaareeyay wadaado badan oo ayagana Soomaaliya jooga aad u cambaareeyay madaxweynahaas bal arintuu sameeyay aad iyo aad baa uga qiiroonay dabcan aflagaadada nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi naxariis korkiisa haato dabcan waa aragteen barnaamijka ila daawo Hussein Cabdullaahi Axmed ayaa soo diyaariyay barnaamijkan sheekuna wuxuu joogaa Soomaaliya ahlu sunna wal jamaa weeye dabcan saa maaragtay noo sheegay wariyaheena Hussein Cabdullaahi Maxamed sidoo tan dunida muslimka meelo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacaya barnaamijyo waaweyn waxaana isa soo taraya carada ay dad badan oo muslimiin ay ka qaadeen hadal ka soo baxay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo ahaa in dimuqraadiyad ay tahay in la sawiro ama sawiro macmala laga sameeyo Nabiyullaahi Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa Allah yeelay sidoo kale dawlado waaweyn iyo madax caalamka ka mid ah ayaa cambaareeyay qaarkood waxa ay madaxweynaha waddanka Faransiiska ku tilmaameen doqon aan wax garan oo dunida u horseedaya dhibaatooyin laga soo kaban Soomaaliya weli kama ay hadlin ma jiro wax banaanbaxyo iyo carada dadweynaha oo dhacay culimada Soomaaliyeedna ilaa hadda kama aysan hadlin arrimahaas oo dunida muslimka meelo badan oo ka mid ah barnaamijyo waaweyn ay ka dhaceen ma maxay sababta waxa martino ah Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Somo afhayeenka golaha guud ee culimada ahlu sunna wal jamaa mudane soo dhow waxay ga warantaa aragtida ku saabsan marka hore carada dadka muslimiinta ay muujiyeen gafka nabi maxamed lagu geeyo gudaha waddanka Faransiiska bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع النهج القويم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون وأيها المشاهدون لنا من كل مكان وما تنتهي حسين عبد الله أدية مركز أوجه الرئيسة هنبليو عندها أمد الصوماليات وحنكون بشي بركة بدنات النبي عليه الصلاة والسلام ورشي وملايين الدنيا كمدة أد وينين هي النبي وتعديمين هيان مشغول ay ku yihiin sidii nabiga alayhi salaam ihtifaalaad oo joogto ah leel iyo nahar aan kala go'o lahayn u sameey lahaayeen marka labaad waxaan aad uga xunnahay una cambaarayna naftayna iyo maalkayna iyo awlaadayna iyo aan ku furanayna horta waxaan cambaarayna ficilka xun oo la yimiday
kan sheeganayo inuu yahay madaxweynaha faransiiska waa runtii waxaan lagu yidhahdo waa la'iim waa mid aad u xun oo awalba hadda ma dhehayno waa nin oo maaragtay wanaagsan oo mar gaalo ahaa mar labaadna haddana asoo bilaa diin ahaa oo haddana bilaa akhlaaq uu yahay bilaa caqli uu yahay caqli male diin male wax uu hadda wuxuu ku tusinaysaa keliya adduunyada sida nabigu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduunya haddii ay ilaahay agtiisa ay garab dhilmaayo qadarkiisa oo qiimo ay ku lahaa lahayd ninka gaalka ah hal mar intuu kabado biyaa lagama siiyeen marka adduunya inaysan macno lahayn ay ku tusinaysaa in waxaasoo kaletood ay madax u noqdaan dal weyn oo faransiiska oo kaletood ah marka waa cambaarahaynaa kartoonaadka ay sameeyeen waa cambaarahaynaa dhiirigelinta uu dhiirigelinaya madaxweynaha faransiiska ee nabiga calayhi salaatu wasalaam xurmadiisa iyo sharafkiisa iyo qiimihiisa meel looga dhaco waxaan ognahay anagu oo maarata xaqiiqsannahay in ay haba yaraatee مثقال ذرة أو أقل من ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام كديبين شرف إسكال الله يا رسول كيسا يا مؤمنين تا مركا ولله العزة ولرسوله ولا مؤمنين قرآن كريم كواي النبي عليه الصلاة والسلام وحواي أفضل خلق الله ومخلوقه كانوا فضل بدن أكرم خلق الله وكانوا كرام بدن وواي النبي عليه الصلاة والسلام رحمدي أو كون كدن مسلم قال بعمتي أو كون كدن بالله صادري أو لو بدبادة واي وحان مودا أو كليا in badbaadadaasi meesha ay kasii bixinayso gaar ahaan heer faransiis dad muslimiin ayaa degan saa ka warqabo dalkaas u dhashay waxaan dadkaas muslimiinta ee faransiiska ah oo kulleetii aan aaminsanahay inay aad iyo aad uga soo horjeedaan iyo dhammaan dunida islaamka oo kaleetood waxaan ugu hambalyahaynaa horta intii ka hortimid waa u hambalyahaynaa waan bogaadinaynaa su-aashaada ahayd culimada Soomaaliyeed waxay aamusan tahay culimadu waxay mashquul ku ahaayeen weyniintii nabiga calayhi salaatu wasalaam ihtifaalaad badana ma fiirsadaan waxyaabaha oo jaraa'idka soo baxayaan iyo maartay idaacadaha mashquul bay waxay ku ahaayeen weyniintii nabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam in dibkaasi la geystaba badana mooda oga waa maasanta dunida muslimka waxa ka dhacaya barnaamijyo waaweyn dowlado badan oo carbeed waxay joojiyeen wax kasta oo u imaan jira dalka faransiiska oo product ama wax la soo saaro ah ganacsiga ay la lahayn bay joojiyeen xiriirkaasi xumaanaya sidaas way tahay wali Soomaaliya ka mid ma ahan dowladahaas waana dal islaam ah maxaa is leedahay ummadda Soomaaliyeed way la aamusani dowladda Soomaaliyeed waxaa waajib ku ah inay u istaagto u qiirooto nabiga calayhi salaatu wasalaam xurmadiisa sharafkiisa inay ilaaliso waxaan ognahay duruufo badan inay ku hereersan yihiin laakiin duruufahaas waa inay caqiidada iyo iimaanka midba ayna taabanin taas dowladda waa laga rabaa inay u istaagaan hadday hero aynu ugu baraarugsanaynin haddaan ku baraarujahaynaa shacabka Soomaaliyeed bishii mawlidka ayaa lagu jiraa nabiga weynintiisa dhammaan ha loo soo wada istaago ha la sameeyo 12 barnaamij insha Allah weyn badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam darsidiisa lagu cabirayo oo laguna cambaaraynayo dadka caadaystay in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay dhibaato u geystaan dhibaatooyinka kale jira waxa kamid ah culimada Soomaaliyeed ilaa hadda qof ka hadlay malahan waxaaba moodaa in badan oo kamid inaanay la socon marka soo ma muuqato gaabis weyn oo dadka Soomaaliyeed gudaha ka dhacay gaar ahaan culimadiiba hadayna ogeynba wixii dhacay waxaan aaminsanahay aninkii munaasabad weyn baan diyaarinaynay culimada qaarkood arintaas anigu kamid ahay waa ka warqabnay waxaan rabnay inaan si weyn badan ilaa malaayiin qof oo magaalada Muqdisho isu soo bixi doonta 12 maalinta oo khamiista ilaa idinkiisa isu soo bixi doonta maartay in oo maalinta 12 Rabiul Awwal ay tahay bisha Mawlid ay tahay oo aan ku weyneynayno in maalintaas waxay tahay munaasabad nabiga laguna weyneynayo laguna cambaareynayo galkaas oo madaxweynaha faransiiska ah dunida muslimka ee go'aan madaxweynaha Turkiga waan u hambalyeeyo madaxweynaha dalka Pakistan iyo madaxweynaha Turkiga lamadaas madaxweyne oo tilaab la gara karo runtii ay qaadeen sidoo kale Kuwait iyo Oman iyo Bahrain oo ayukuna waxyaabihii ka soo baxay joojiyeen waa hambalyeeyna dhammaan dunida islaamka waxa ugu baaqaynaa dan xukuumadda Soomaaliyeed dowladayna ugu baaqaynaa dhammaan dunida islaamka ugu baaqaynaa in la gooyo xiriirka safaaradaha laga la soo laabto xiriirka la leeyahay dowladda faransiiska dhammaan dunida islaamku waxaan ugu baaqaynaa in ay gooyaan safiiradoodna u yeertaan aanay ay go'doomiyaan go'aan buuxan ay ka qaataan wuxuu muujiyay madaxweynaha faransiisku cadaawadda oo u qabo islaamka
cadaawada uu qabo nabiga calayhi salaatu wasalaam cadaawada uu qabo rabbul ciza oo koonkan dhan maamula u ah waan aaminsanahay inay dhibaatooyin kusoo laabanayso asiga aakhira ka sokow adduunyada ayuu ku dhidhiminayaa cid kasta oo tilaabtaas qaadane waa cid oo maata ka shalaanaysa adduun iyo aakhira ka shalaanaysa marka waxaan leeyahay dadka faransiiskana waxaan leeyahay warkaas madaxdiina qamaaye ku mudaaharaado iska tuuro dalkiina waa gubanaya dalkiina waa rugumanaya heer faransiisa waxaan leeyahay haddaa muslim tihiin haddaa gaala tihiinba dalkiina waa gubanaya haddaa ninkaas madaxa idin yahay waa inaad tuurtaan haddii sidaan ay wax kusii socdaan aragtidaada oo dunida meelo badan oo kamid a barnaamijay ka dhacayaan wax soo saarkii faransiiska la joojiyey madaxdii caalamka ugu awooda badnaa ee muslimiinta ahaana ay hadlayaan maxaa is leedahay way sababi karaan haddaanan laga falcelin oo ay isu imaansho dhicin oo ay faransa ka garaabin dhibkii ay geysatay waxaa dhici karaa horta kow caala ilaahayaa ku dhacday lacnada ilaahayna wax kasta idaa ka weyna badan taasaan waxaan ka dhalanaya haddaysan dowladda oo faransiisku ayna arrintaani isdaba qaban oo dadka faransiisku ayna isdaba qabanin ay khatar ay tahay in ay maaragtay waajahaan dhibaato weyna badan oo runtii cid kastoo ayuka ku taageersana la saamay doonta oo awalba ma og tahay dadka kani waxay ku joogeen gaalada wax qiimo adduunyada wax qiimo lama ahaynin oo gaaladana waa la siinaya dadka adduunyada gaalada waa lagu raaxeeyaa waa loo soota dheereeyaa laakiin soota dheereyntii ayay soo gaabinayaan cadaabkooda ayay soo dedejinayaan waxaa dhihi karaa waa un shinni oo kale shinni markii qofka ay qaniinto qofka wax dhibaataa gaari maayaan laakiin shinigu elegtoo ku jibina wuu dhimanaya marka waxaa ku dhimanaya faransiiska iyo dowladdiisa ku dhimanaysa iyo cidda oo fikirkaas xun ku taageersan waa inay ka garaabaan alla u ka tooba keenaan islaamaan kule garoog la qaadan karo waa inay diinta islaamka kusoo galaan fadhiga waa in laga kacaa dabcan nebiga aflagaadada nebiga ina maaragta lagu fiirsado social mediaha horte dad badan baa isticmaala social mediahu xumaanna waa leeyahay sharna waa leeyahay xumaanna waa leeyahay wanaagna waa leeyahay dabcan xumaantii waa u badan si haddaa u fiiriyo social mediaha xumaantii waa u badan dadka xumaanta soo geliya aad bay u daawadaan aad baa ugu xirantihiin dadka wanaagga soo geliyana kuma xiran maaragtay hadda selfie media oo kale maxaa la dhahaa adada aadka loo soo geliyo aad baa views yaraa viewska aad buu yaryahay dabcan meelaha kale oo daawanaysaan oo kale ninkaan oo kale maxaa la dhahaa cunugaan oo kale jerusalem oo kale waa daawanaysaan ilaa xumaan buu soo gelinaya isagu wax xumaan buu racagsi ka bixinayaa waa daawanaysaan maxaa la dhahaa wiilkii ilaahay iska dhaafee wiilkaan xamar jooga isagana waa aragtee xumaan buu soo geliyaa waa daawanaysaan dabcan xumaantii aad baa loo daawanayaa wixii wanaagana waa laga sii jeesanayaa ma garanayo waxaa jira anigu aad uma garanayo anigu waxa ma aragtay social mediaha sidii hore ma ahan xumaantiiba aad dadka u daawanayaa wax beenaasaa loo sheegayaa tan kale qof baa ma aragtay qof buu xamanayaa maantao dhan qof maaragtay saas leeyahay wuu cunayaa saas weeye saas qabiyaalad waxa kasta waxyaalaha qaar ma fiicna in macdarayaalo hala iska dhaafo maaragtay wadaadadaa la hadlayaa qaarkood youtubeleydaa la hadlayaa oo waaweyn baa la hadlayaa fadhiga ha laga kaco meeshaan waa ujeedaan ma garateen hala mudaharaado hala kaco hala istaago saaxiib ayaa rag iyo dumarba intaasaa liga tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa anigoo gabshayaro ah halkan ayada socotaa waa wanaaga qoyska alaawa naga barateen arrimo xiise leh iyo barnaamijyo xiise geliya ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu